hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa uga digtay ciidamada qalabka sida inay ku milmaan siyaasadda xilli ay xiisad siyaasadeed ka taagan tahay dalka. qoraal kooban oo NISA ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa lagu yiri taliska NISA wuxuu ku howlan yahay sugidda amniga wuxuuna ka digayaa ku milanka siyaasadda ee ciidamada qalabka sida iyo in la siyaasadeeyo waajibaadka ciidamada. shacabka Soomaaliyeed oo ku mahadsan yahay mar walba garab istaaga hay-adaha amniga qaranka. qoraalka hay-adda NISA ayaa waafaqsan digniino ay horay u bixiyeen taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo booliiska oo ay ciidanka uga digeen inay ku milmaan siyaasadda. magaalada Muqdisho ayaa waxaa hadda ka taagan cabsi la xiriirta inuu dagaalka dhici karo ayada oo ciidamada badbaado qaran ay diyaar u yihiin inay beel ahaan u difaacaan ra'iisul wasaarihii shaqada laga joojiyay ee Maxamed Xuseen Rooble oo madaxweyne Farmaajo uu kala dhaxeeyo khilaaf siyaasadeed. Rooble ayaa dhacdadaasi kadib uga digay ciidamada ammaanka inay ka amar qaataan madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. hay-adda NISA ayaa waxaa hogaamiyay Yaasiin Cabdullaahi Farey oo ku xiran ama saaxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo iyo taliyihii hore ee hay-adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayada oo xiisadda hadda taagan ay ka dhalatay sababa ay ka mid yihiin kursiga xildhibaan ee Yaasiin Farey uu ku guuleystay oo muran badan dhaliyay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda waxa uu khilaaf kala dhaxeeyaa Maxamed Xuseen Rooble oo uu shaqo joojin ku sameeyay maalmo ka hor waxaana Rooble uu ku eedeeyay xil gudasho la'aan iyo in uu ku guuldareystay qabashada doorashada dalka. dhinaca kale madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka iyo dadweyne kala duwan. hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa ka qayb galaya shirka madasha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay ra'iisul wasaarihii shaqada laga joojiyay ee Maxamed Xuseen Rooble. sida muuqata Maxamed Xuseen Rooble ayaa shirka furi doona Sabtida xitaa haddii madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen uusan imaan magaalada Muqdisho maadaama uu qaadacay shirkii uu ku baaqay Rooble. shirka golaha wadatashiga qaran ayaa baaqday Isniintii la soo dhaafay kadib markii madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay ka cudur daarteen balse hadda magaalada Muqdisho waxaa ku sugan 4 hogaamiye dawlad goboleed waxaana ka maqan kaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen.